meeshaan maanta waxaan u malaynayaa annaga adduunyadu waxaa la yidhi ama waa wax sheeg ama waa wax muuji. wax sheeg waa soo dhaaftay. maantay waxaynu dul joognaa deked ku soo biidhay dekadaha Soomaaliya oo 5 ku noqotay oo maantay uu xarig jaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyo madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweynaha Lafta Gareen iyo madaxweyne Mustafa Cagjar ayagoo matalahaya dhammaan Soomaaliya madaxda maqan iyo inta joogtada. waxaanu leenahay marka hore Ilaahay noo barakeeyo. marka xiga waxa weeye hadalkayga waxaan ku soo koobayaa dekedan waxay ku soo bilaabatay 50 sano soo socday waa lagu soo taamayay laakiin hadda riyadan hadda maanta rumowday oo xarigeedii la jaray ilaa iyo 2016 bay soo socotay 7 guuradeedii maantay buugta la idin qaybinayo oo dadka madaxda loo dhiibay waa 7 guuradii ay soo madhay iyo maanta meesha ay joogto. ilaahay baan ku mahadinaynaa arinta noocaas ah. qodobka koowaad waxay ku bilaabatay dekedaas 25 qof oo min 5 kun isku daray oo 25 kun oo dollar ah bay ka bilaabatay. inaan maaragtay sharaxaad yarna ka bixiyo dekedan iyo mashruucan iyo fishinkiisa iyo una mahad celiyo madaxda iyo marti sharafta iyo dadweynaha xafladan nagala soo qayb qaatay. mudanayaal maanta saa u jeedaan dekeda waxaa ku xiran markab 9 kun oo tana. waxaa dhammaaday wejigii hore ama phase 1 oo ka kooban 2 jambi, jambiyada A iyo jambiga B oo hadda uu ku xiran yahay markabku. jambiga A waa 160 mitir, jambiga B na waxa weeye 120 mitir, 280 mitir. labada jambi oo noo haray oo C iyo D midna waa 320 mitir, midna waa 300 mitir. waa labada jambi oo waaweyn. wax la taaban kara qabatay bilow fiican u ah. anaga wax badan waa soo qabanay ganacsatada Soomaaliyeed, laakiin dhinacaan oo dhinacii ugu cuslaa ah aad ugu mahadsanyihiin shaqada walaalaheen ay qabteen. waxaan leeyahay maanta hambalyo shaqada ay qabteenna waa ku mahadsanyihiin. waxaa si gaar ah aan rabaa walaalaheen oo shaqadan qabtay inaan u sheego kuna niyad dhiso. waxaan isla soconay maanta ganacsatada Soomaaliyeed xoogeedii oo dhan waliba qaybaheeda import and export oo isticmaali doonta dekedan oo ay kamid tahay qaybta hadda markabkan shamiitada u horeeya oo keenay ay kamid yihiin wax weyn ay ka tari doonto muxuu ahaa ganacsiga iyo kordhinta dakhliga dawladdu ay leedahay. garaacdu waa ku xidhan tahay muxuu ahaa federaalka. waana rajaynaa muxuu inta kale ee Boosaaso iyo Kismaayona inay nagu soo xidhmaan si dhaqso haddii alla yari waa intaan u soconno. marka alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan rabaa inaan idiin hambaliyo qolada wadaagsan waan raado muxuu ahaa khayr baad samayseen. allah idinla garab galo. All protocols observers, ladies and gentlemen. The people of Ethiopia and Somalia have long historical and brotherly ties for thousands of years. With today's opening of the new Garad seaport, a significant milestone in the development of Somalia and for the people of the Horn of Africa. We are honored to be invited to join you to celebrate this momentous occasion, and as your large landlocked neighbor, we are greatly looking forward to the contribution of Garad Seaport to the transportation infrastructure and logistic facilitation of the region. Under our Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, the homegrown economic development program of Ethiopia greatly focuses on increasing regional trade and developing the infrastructure required to allow us to import and export competitively to the world. With the opening of this new terminal, our region will be able to use the largest ships operating in the world today. Ethiopia, being a country of over 110 million populations and has a landlocked country, is taking a very massive transformation program on transport
and logistics sectors, and to that effect, a national logistics strategy with these 98 interventions for which different projects are identified under implementation. anigoo waan ku hadlayo magacayga iyo magaca dowladda federaalka Itoobiya waxaan marka hore jeclahay inaan u mahadceliyo dowladda Puntland ganacsatada sharafta leh iyo guud ahaan ba shacabka reer Puntland ee nagu marti qaaday inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan ee lagu furayo dekada cusub ee Garaacad oo runtii ahaantii kamid ah mashaariicda ugu waaweyn ee laga hirgeliyay gobolka Geeska Afrika ee aan ku noolahay dekada Garaacad waxay calaamad u tahay isku tashiga maalgelinta deegaanka ah fikir iyo maskax ay la yimaadeen madaxweynaha Puntland ganacsatada dadka reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba. I am happy the port manager is a student of one of the universities in Kenya, but there's a very big college in that East African students use who run port, and it's based in Mombasa. We wanted to send those young men and women to that college. We want you to send those young men and women who will run this port and other ports in Somalia to our Kenya Revenue Authority Institute, because we must get people who will run the port in offloading cargo, and we must get men and women who collect revenue, who work as customs officers, who work as immigration officers, and we are ready as Kenya under the leadership of President William Ruto to support your government. We are ready for that. Somalia waan iska ilaalina markaan Soomaaliya imaado marmar kaftan aan ku hadla markaa kaftankii waa dhibaatooyin badan ii keenay markaa maanta waxaan dhahay af Soomaaliya bal iska ilaali laakiin waxaan rabaa inaan xuso madaxweyne Xasan iyo madaxweyne Deni iyo madaxweyne Cabdicasiis iyo Mustaf iyo wasiirada meesha joogaan inaan ku faraxsanahay fariinta ugu muhiimsan ee dowladda Itoobiya waxa soo jeediyay wasiir dowlayaashii labada ah iga horeeyay oo tilmaamay diyaarka sida ay diyaar ugu tahay dowladda Itoobiya inay ka faa'iideysato dekedan cusub ee ku soo korodhay mandaqadan taaman si adkeynaya anigu deegaanka Soomaalidu maadaama uu dalka Itoobiya cid ugu badan ay ka faa'iidi doonta uu noqonayo geography ahaan sida uu yaalo iyo shacab ahaanba inaan diyaar u nahay in kaalintanada ka ciyaarno dhabahaana shaqooyin qabsoomay haddaba ay jiraan waxaa ka mid ah in wada laamiya oo isku xidha magaalada Qabri Dahar iyo Wardheer ay hadda dhammaad tahay oo ay dhammaanayso taasoo jirta inay jirto wada kale oo la qorsheeyay oo ka soo bixi doonta Dhagaxbuur Awaare Danood ilaa iyo Galaadi imanaysa oo iyaduna ku jirta qorshaha in la sameeyo waxaa loo baahnaan doonaa in la soo gaarsiiyo ilaa Tuurdibi arrintan ka shaqeysay waxaan kaloo rabnaa oo bogaadinaynaa in wax ku dayasho mudan baa la suubiyay ganacsatada kale Soomaaliyeedna ay ku tarjaan gaar ahaan waa joogan ganacsatadii reer Koonfur Galbeed waa arkaysay markii siday ku bilaabatay dekedan inaad maanta fariintan inta kala tagtaan oo aad ku noqotaan deegaankeeni oo aad dhistaan dekadaha Marko iyo Baraawaba aad dekada ka samaysaan iyo madaxda dawlad deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya oo runtii muddadii ay socotay iyo ka horba xiriir iyo ganacsi hore aan lahayn ka sokow naga ogolaaday inay dekedan ay noqoto meel ama corridor kale oo cusub oo ku soo biiraya Itoobiya waxaa dhammaaday Tuurdibi kastamkeeda oo labada u dhaxayn doona insha Allah dal waxaan rajaynaynaa inuu ganacsiga iyo horumarka uu qayb ka qaato hadal badan maanta halka igama furnaa waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hadalka xoogiisa leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo aan si gaar uga mahadcelinayo inuu maanta kulankan ka soo qayb galay
kelmadaha ku aadan Soomaaliya iyo wixii laga yeelay isagaan u deynayaa madaxweyne soo dhawow waa mahadsantahay dalka Soomaaliya ilaahay idankiis meelihii uu ku jira waa ka soo baxay uu socdaa waana sii socon doonaa haddii calaamooyinka ama tilmaamooyinka tilmaamayana tan ayaa ka mid ah in dekedan la dhiso oo lagu dhiso weliba xoog iyo xoolo iyo caqli dad private ay leeyihiin oo dawladda Puntland maada ka gaartay inta muxuu ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelin la dawladaha kale ee xubnaha ka ah dawladda federaalkaana tusaale u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan shanta dawlad goboleed ee maanta Soomaaliya ka shaqeysay joogtahay mid walba baday ku xiran tahay xeebay leedahay dhulbadeeday leedahay mid oo badda ka go'an ma jirto marka mid walba in ay sidaan oo kale meelaha ay badda uga agadan tahay meeshii ku habboon ee strategic ah inay dekad ka samayso intay doonto hal ekaatee waa dhab